doorashooyinka Somaliland ayaa galay maalintii shanaad. Xisbiga muxaafidka ah ee Kulmiye ayaana u lahaa maalintiisii labaad ololaha doorashooyinka Somaliland. Magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil ayaa ay ku soo bandhigeen taageerayaasha kala duwani cududooda taageero ee kala duwan, waxaana ay fagaaraha khayriyada uga khudbadeeyeen taageerayaashooda. Murashaxiinta Samsam Maxamed Ciga iyo Shacayb Muuse Allaale ayaa markii laga soo dareeray fagaaraha khayriyada ee laga khudbadeeyo waxa ay u soo ambabaxeen jiida u dhaxaysa magaalooyinka Berbere iyo Hargeysa, kuwaasi oo soo maray dhammaan deegaanada ku teedsan laga bilaabo deegaanka Daragodle, Xamaas, Lafaruug, Abdaal, Macaaneeya, Maqaaxida Inanta, Dooxa Guban iyo welibana deegaanka Dacarburuq ee degmada Laasgeel. dadkii ay deegaanadaasi kula kulmayeen ayaa ay ku dardaareen in ay fartooda ugu hiiliyaan maalinta codaynta, waxaana dhammaan deegaanadaasi ku soo dhoweynayay dadweynaha kala duwan ee taageersan labadaasi murashax. garabka haweenka magaalada Lafaruug waxaan soo dhaweynayaa waftida ballaaran ay hogaaminayaan Samsam Maxamed Cigiyo Shacayb Muuse Allaale. waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaalada Lafaruug. magaalada Lafaruugna waxaan leeyahay dhalinyaro iyo waayeel iyo caruurba sawcadka ma siino Samsam iyo Shacayb ilaa saakaceeda u taagnaa aad iyo aad baan ugu bahadnaqaynaa. weliba waxaa intaa dheer in badanoo halkan maraynay reer Xamaas kama noo shaqayn, waanu yaro dhaafdhaafay. anigu marka shakhsiyaan iska hadlo iyo kay sabaabulay iyo ka gartay inay masharaxada Samsam Maxamed Cige iyo Shacayb Muuse Allaale taageeraan, caqligooda ay ku garteen. aad iyo aad bay mahadsanyiin, si tallimeen noo soo dhaweeyeen. waxaa sheegayaa oo kale oo u sheegayaa dumarka iyo degmadan Xamaas kolrayo waayo waqtigooda gaaban, laakiin waxaan leeyahay maanta waxaynu joognaa gabagabo xilligii ugu dambeysay baynu marayna, waana maalintii xisbigeennan ugu dambeysay. codkeenna yaynaan la hilmaamin, aynu la ogaano calaamadda kaaraha iyo lambarka 212 Shacayb Muuse Allaale iyo Samsam Maxamed Cige sheegaya maadaama reer Dacarburuq yihiin. Samsam iyo Shacayb Muuse Allaale Dacarburuq waa deegaankoodii, waa deegaan ay aad ugu kalsoon yihiin. xusbiyada kale iyo musharaxyada kalena mid bay dheer yihiin. waxay dheer yihiin Samsam siyaasadda waxbay ka garanaysaa. xildhibaanadu maaha meel alla bari loo tegayo, waxaa laga doonayaa qof firfircoon oo siyaasadda wax ka garanaya. mar dambe waanu sheegnay wax loo tiim xuusheeya Samsam Maxamed Cige iyo Shacayb Muuse Allaale labada xildhibaan ayaynu wadana hadaynu nahay qoladeenna reer Dacarburuq. halkana Samsam baa imika maraysa, waxaynu ilaahay ka baryaynaa maalinta xigta iyagoo soo baxay inaynu Dacarburuq isku nimaadno. wax badan oo Dacarburuq ka dhiman ma anigu dawladdu shaqeeyo, dawladda waxba laga sheegi maayo. dawladdu lacag badan ma haysan, laakiin wax badan oo ka dhiman guntiga dhiisha way iskaga dhigi. Samsam horena way iskaga dhigtay, imikana way iskaga dhigi. dhakhtarka dhimirka way nagala shaqaysay, kaa kale caadiga ah imika anagoo ballasna ilaahay beenu sheegi maaye inaanu agaasimayo wasiirkaba soo kaxaynoo la furaba ayay doorashada naga gashay. hawshaan ayadaa lahayd in la soo kaxeeyo. madaxweynaha bay keeni doontaa reer Dacarburuq madaxweynaha kaba hadale iyo madaxweynaha wado xildhibaanada inoo keeni doontaa. murashaxiinta Samsam Maxamed Ciga iyo Shacayb Muuse Allaale oo dadweynaha deegaanadaasi kala duwan la dardaarmayay ayaa ku boorinayay in aanay hilmaamin maalinta 31 May in ay fartooda ugu hiiliyaan. maanta waa maalintii ugu dambeysay, waxaa loo baahan yahay inaad codkiina iyo kaarkiina la diyaarsataan, guntiga dhiisha isaga dhigtaan, aadna u codaysaan xisbiga Kulmiye, taageero iyo mug iyo xooglana u muujisaan. waxaan halkan ka salaamayaan madaxda sharafta leh ee fadhida xisbiga Kulmiye dhammaantood aadayaan u salaamaya. magacaygu waa Shacayb Muuse Allaale, waxa weeyaan calaamadoodu 212. musharaxadda ila sharaxani waa Samsam Maxamed Cige, waxay wataa kaaraha. sidaa daraaddeed aad baan idin wada salaamaya. annagana noo ogaanaysa idinka maanta la idin ogaanaya inaan codna siinaysaan iyo kale. annagana imtixaan kalena hor yaallo maalinta aan guulaysano ayaanu odhanaysaan ilaahay baa noo waafajiyey dad wanaagsan iyo dad waalan baana soo maray. waa labadaa anigay ma dooranaysaan, adaa isdooranaya qof walba. waxaad dooranaysaa kursigii ku difaaci lahaa, waxaad dooranaysaa kursigii kula dareenka ahaa, waxaad dooranaysaa kursigii xuquuqdaada kuu raadin lahaa. istoorta waan daalanahay, hadalkaygana ha dhayalsanina.
qalbigaan idinkala hadlaya afka idinkala hadli maayo qalbigaan idinkala hadlaya mar dambaynu telefoon isu soo qaadanaynaa ma jirto waxaan idinkaga tegayaa qof walow soo maaha dacar buruq iyo codkeeda ayaan kaga tegayaa soo idinka maaha